السلام عليكم. موضوعنا maanta waxa uu ku saabsan yahay midhaha loo yaqaan cinabka. Cinabka waxa uu ka mid yahay cuntooyinka xilliga xagaaga soo go'da oo waliba si isku mid ah carruurta iyo waayeelkuba u jecel yihiin. Sidaa daraaddeed xeeldheerayaasha caafimaadka iyo nafaqada waxa ay cadeeyeen in uu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo tiro badan. Sidaas ay tahayna muuqaalkeena maanta waxaynu ka eegaynaa qaybaha ugu muhiimsan ee faa'iidooyinka ama waxtarka nafaqeed ee canabka ama dadka qaar u yaqaanaan cinabka. ku soo dhawaada mowduuceena. ugu horeyn cinabka waxa uu yareeyaa madax xanuunka waxaanu xoojiyaa caafimaadka maskaxda. waxa kale oo uu ka hortagaa cudurka maskaxda burburiye ee loo yaqaan Alzheimer-ka. qofka uu ku dhacana cudurkaasi cinabku waxa uu noqdaa daawo wax badan ka caawisa. faa'iidooyinka kale cinabka waxaa ka mid ah cinabka waxaa ku jirta maado lagu magacaabo resveratrol oo yareysa heerka isku dhisyada acid loo yaqaan amino acid ee maskaxda, taasoo loo yaqaan haddana peptides oo haddii ay hoos u dhacaan khatar ku ah caafimaadka maskaxda. waxa kale oo waxtar la taaban karo u leeyahay caafimaadka dheefshiidka. sidoo kalena waxa uu sare u qaadaa caafimaadka indhaha iyo aragooda. waxa kale oo uu yareeyaa xaaladaha ka dhasha xiiqda. waxa kale oo uu hoos u dhigaa heerka dufanka dhiigga ku jira. waxa kale oo uu yareeyaa cinabku acid kaadida ku jirta, taasina ay aad u caawiso habsami u shaqaynta keliyaha, maadaama haddii acid kaadidu ay badato ay culays saarayso shaqada keliyaha. haddaba daawadayaal, faa'iidooyinka kale cinabka waxaa ka mid ah cinabka cunistiisa oo la joogteeya waxa ay dib u dhigtaa calaamadaha muujinaya gabowga, wuxuuna jidhka ka ilaaliyaa ama ka caawiyaa iska difaacidda cudurrada da'da ku lamaan. waxa kale oo uu cinabku ka hortag u yahay calool istaagga. laakiin dhinaca kale timaha bini'aadamka ayuu quwad u sameeyaa, wuxuuna ka ilaaliyaa timo daadashada. sidoo kale waxa uu ka hortagaa cirrada. dhinaca kalena maqaarka ama jidhka bini'aadamka waxa uu sameeyaa dhalaal dabiiciya, wuxuuna ka daaweeyaa boogaha madow ee ku samaysma. sidaa darteed waxaa kaloo jirta lafaha bini'aadamka gaar ahaan dumarka waxa uu ka ilaaliyaa burburka, xaaladahaas oo aad ugu badan dumarka. ugu dambeyntii cinabka waxa uu dejiyaa ama hoos u dhigaa dhiigkarka. carruurta la siiyana waxa ay ka hortag uga yahay cudurka dabaysha ee naafeeya ubadka.